السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadyaal magacaygu waa Maxamuud Soomaali channelka aad daawaneysaan waa Source Production. maanta waa hadeertaan waqtigu waxa ii tahay 7:12 daqiiqo ama 1 saac iyo 12 daqiiqo oo subaxnimo ama 7:12 am hadba si aad u taqaano. vloggan maanta waxaan u soo kala hadla ma dhihi karo, laakiin xilligan oo kale wali waxaan u maleynayaa inaan muuqaal duubin hadda ka hor. waxaan igu qasabtay jawiga oo sidaan ah. maanta waxaan rabay inaan bal muuqaal soo sameeyo. waanigi lahaa maalintii koowaad roobku da'ayay waxaan aadayaa xeebta, sidaa daraadeed waqtiga ayaa ii saamixi waayay maxaa yeelay roobkii soo siyaaday. xeebtana waa halis xilliyada roobka ah, waliba waxaa la yiri gobolada bari ku yaala hay iska ilaaliyaan dadka ku nool xeebaha iyaysan tagin baa la yiri. sidaa darteed marka waxaasan ii suurtagelin in mataqaanayo aan aado xeebta, balse sidoo kale maalintii labaad ayaan damcay inaan aado. waxaan hadeertaan u aadi waayay maalintii koowaad korotadii ayaa magaalada ka maqnayd, marka sababtoo ah qalabkii wax lagu duubi lahaa haddii aan lahayn mobile, haddii aan lahayn kaamirooyinkii wixii batariga ka dhacay. sidaa darteed marka ma suurtoobin in aan muuqaal sameeyo. marka hadeer taaka waxaan isiri bal waqtiga ka faa'iideyso inta shaqada aan la gaarin. marka shaqaan leeyahay hadhow, sidaa darteed hadda waxaan jeclahay inaan mataqaanayo bal waqtiga kooban ee aan haysto inaan ka faa'iideysto. marka hadda waxaan hayaa wadadii dheereed ee sodonka galaysa sababta sawaxankooda ka raali noqda hadday idin soo gaaraan, waayo waqti kale maan haysan markaa oo jawigu degan yahay. marka waxay fiican tahay marka ay baabuurtu marayso dadku socdaan in muuqaalka la duubo, markaas ay quruxsan tahay. laakiin magaalada haddii ay cillo tahay oo aad soo duubto waxaa la moodayaa in magaaladii laga qaxay. ma garateen qoraxda hadda soo baxday, soo ma aragtaan? xoogay iska xilli roobaad way, marka qoraxda wali si fiican ma soo bixin. hadda waxa taaganahay barafka lagu iibinayay. marka halkaas waa taa baabuurtii soo socda, xaafadihii buuraha ahaa waa xiga. baabuurtu waa taa halka ka soo socota, garateen. marka intaan u joogo horta aan ka warhayo roob ciidankan oo kale ah kama da'in, ma garateen. marka roobka waa roobkii wax badan bay Soomaalida dhahaan ama reer Boosaasood ku dhahaan roobna ma qabto, roobna ma hayno iyo waxa la ilaahay nimcadiisa waa taas bar un bay timaadaa, ma garatay. wixii raaya khayr ku jiro Soomaalida tiraadaay. marka alxamdulillah ilaahay waa noo nimceeyay, wax badan baan ku taabiinay roob ciidankan oo kale inaan helno. markood waxaa noo di'i jiray roob intuu istixtiixdo iska taga ama roob xoogay socda daqiiqado kooban. sidaa darteed waxa uu roobkan nagu da'ay, waxaan u malaynayaa galab buu da'ay. alxamdulillah ilaahay baan u mahadinaynaa. insha Allah yaan idinka maqlin mar damba roob ma laha iyo roob ma da'o iyo, ma garateen. ma jeedaan wadada keligay baa maraya dad dhif iyo gawaari ilaa halkan waxa way tii xeebta galaysay, gadaasheedu waxa way tii aadaysay magaalo ka baxi iyo xaafadii buuraha la oran jiray saddex jigoodii gadaashaas arkisan horeydaas, ma garateen. iyo xaalku Kismaayo tay ku dhaceysay waaye iyo jaamacadda bariga Afrika maandeeq aan iraahdo aadaysay. marka saaxiibayaalow cilada ma aragtay waa bahalkii waqtiga waa wareer. waa ka wadadan sidoo kale waxay gashaa madaxtooyada waxaa gasha dhowr wada gasha madaxtooyada bay gashaa wadadaas hadeertaan idin muuqata, ma garateen. waa taa xigta gasha waa idinka saaka waxaan u soo baxay bal asxaabtaada waqti la soo qaado. vloggeedayda inta badan aan mobile ku duubo kuma hagaajiyo computer, isagaan ku hagaajiyaa. wali waxaan isticmaalaa software ka la yiraahdo ama application ka la yiraahdo KineMaster ama Power Direct. wali waxaan u maleynayaa vlog
aan sidaan uga soo wada muuqdo inaysan jirin ay ku yar tahay meelaha aan tusayo iyo muusigii badnaa marka waxaan rajeynayaa marka qaarkood waxaa dhacda in aanu gaariga markaa saaranahay wax duuba magaalada gaarigana waxaa laga yaabaa dhalinyarta inay mataqaanaayo sawaxankooda iyo falada waa ka argada gadaasheeda waa argadii ku dhamaanaysay jidka sodonka xaggan oo ka bilaabma hadeer dhinaca kale ma aadi karno waa gaari ma haysto saasa keenaysa marka argada waa kan argadan waa kan xeebtii haddii aan eegno wadadaasna aada waxay aadaa xeebta weliba qaybta sawiraanta loo aado ee jaziira la yiraahdo marka bal ila daawada intaas soo marnay hadda xoogay muuqaal badan ka tusaya hadhow waan isla soo noqonaynaa insha Allah billahi kariim. Till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on we'll go. muuqaalkan waxaan jeclaa in asxaab badan ay igala qayb qaadato shalay sidaan u diyaarsaneen iyo sidii ay hawsha nooga xumaatay ismalaha haddii ma taqaanayo waa si fiican wax waarka weydaan waxaa keenaya jawiga ayaa aad u degan waxay roobaad sidaa daraadeed ma suurtoobaysa moogtaa inaad wax walba si keliya u aragtaan laakiin videoga editing buu maraya soo maha moobilkayga wax kale ah inta badan kaamirada ma isticmaalo anigu kaamirada markaa isticmaalay waa markii mataqaanayo aan haysto kaamirad ama aan soo qaato kaamirad ma lihi laakiin moobilkayga wuxuu yahay A10s moobilada dambe hadda smartphone-ka ay hadda soo baxay waa iska kaamirada fiican yihiin. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands, through the highways and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways till my shadow turns to sun rays and on. hadeertaan supermarket baa maraya supermarketkaas mar baa istiraaday ma weydiisaa in ay kaa ogolaadaan iyaguna suuqgeynta oo noqonaysaa markii haddii ay ka ogolaadaan adigana channelkaada ama videoga ayaad ku quruxsanaysaa marka insha Allah billahi kariim waa group supermarket waa ka marka maanta waan la qaatay waqti aad u qurux badan waxaa yeelay ilaa waxaan socday in badan sidaa darteed qalada caynkan oo kale aad u qurux badan yihiin
adigoo magaalada tusahay dadka haddana in mataqaanayo oo adoo hadlaya kasoo dhex muuqato supermarketka insha allah waa ku noqonayaa haddii alla idmo. marka waxaa macquula inay igu adkeeyaan soo duceeyo laakiin ya hala soo duceeyo maantana baa idin sheekeynaya. marka waxaan xoogay bal daawanaynaa magaalada. marka nimcada ilaahay waa ilaa hadda cadceeda ma soo bixin. saaxiibayaal waxaan soo galnay hadeertaan supermarketkii Afwaaj Group hypermarket. supermarketkan wuxuu ku yaalaa locationkiisa iyo lambarada laga soo xiriiriyay insha allah waad heleysaan. waan idin soo sheegi doonaa xagga hoose descriptionka ama lambarada xaggaas ayaan kusoo qori doonaa lagala soo xiriiriyo. waxa uu ku yaalaa jidka weyn ee Sodonka. waa supermarket casri oo mar dhow la sameeyay. supermarketka waxa uu ka kooban yahay qaybo kala duwan. qaybtan aad ujeedaan waa qaybtii maacuunka iyo lagu iibinayay ama qaybtii maacuunka ayraade. qaybahana waxa weeye qaybtii shoppingka haddii aan saabuunada kareemadii iyo wixii la mid ah. xitaa waxaa ka helaysaa supermarketka waa supermarket aad u ballaaran. haddii aan muraaxadihii haddii xilliyada xagaaga la gaaro dee halkan aad usoo doonan doontaa waa muraaxado casri ah. weli haddaan been sheegin magaalada kuma arag muraaxado ceenkan oo kale ah oo kaladan leh sidana u dhiseen garaysan. qaybtan waxa weeye qaybtii Colgate iyo adiga kareemadii lagu iibinayay. haddii aan halkan usoo wareegno halkan waxa uga jeedaan qaybtii sharaabka weeye. maasha allah waxaan leeyahay waa supermarket aad cajiib ah. qaybtan waa jalaatadii aad ujeedaan hortiina ka muuqata. qaybtan haddii aanu eegnana waxa weeye qaybtii roogaga haddii aan leedahay aqalkii sidoo kale go-yaashii firaashyada lagu gogli jiray. gudahan ha ujeedaan hadeertaan waa qaybtii kabaha sida idinkaga muuqata. daladii xitaa roobka xiliyadan waa xilli roobaad. waxaan rajeynayaa inaad xilliyada roobaadka oo kale haddii aad isweydiinayso xaggee daladu doonataa inaad ka faa'iideysan doontaan aad daladihii soo doonan doontaan. qaybtan waa qaybtii kabaha lagu iibinayay iyagoo noocyo kala duwan leh rag iyo dumar. sidoo kale waxay haysaa supermarketka wuxuu hayaa baby gas haddii aan qadarin. dhinacan waa dhinacii fiimtadii buskudkii iyo macmacaankii weeye. sidoo kale halkan waa qaybtii caanihii timirtii haddii aan lahayd kalluunkii fuulkii iyo wixii lamid ah. xitaa saliidihii waaweynaa ee caagadaha weyn ku jiri jiray way hayaan oo way yaalaan. dhinaca haddaan usoo wareegno waa qaybtaa sare waxa weeye boorsooyinkii dharka lagu guran jiray iyadoo isugu jira noocyo kala duwan. halkanna waxa weeye sidoo kale yaala qaybtii caruurta weeye oo masaasadii haddii aan leedahay xafaayadihii bustiyaashoodii iyo wixii la mid ah. waxyaabaha aan supermarketkan ku arkay waxaa ka mid ah oo aan la dhacay waxay hayaan timir aan mataqaanaya hadeer badan ama supermarketkii hayeen ama aysan jirinba inaysan haynin Turkiga ah. timirta noocaana weeye iyadoo furan heersan waa taa timir caynkaas kala weeye. marka Turkiga laga keenay say ii sheegeen dhalinta meesha haya aad bay u baahsan sida ay noogu ogolaadeen inaan muuqaal ka sameeyno supermarketka iyaguna faa'iido u tahay iyo xayeysiin. marka waxaa kaloo ka mid ah aan la yaabay supermarketka uu hayo biyo iyaga kaliya ee magaalada keenaan. waxaa la yiraahdaa haddii aan qaldaneyn Maa-i Dubai sax aad iyo aad. qaybtan marka waa u tagaynaa qaybta biyaha. qaybta waa qaybta dharka lagu iibinayay. marka waxay isugu jirtaa rag iyo dumar. qaybtaas waxaa ragga qaybtan kale waa dumarka saa u jeedaan qaybtii dumarka weeye. sidoo kale xaggan waa iyadan waa qayb kale oo dharka ah sidaayadii salaada lagu tukan jiray waatan lagu tukado oo way hayaan iyaguna. marka biyaha idin sheegay waa kuwan iyagoo xirxiran weeye xabad furan baan idin tusayaa insha allah. biyahan waxaa laga keenay wadanka Dubai. sidaa darteed waxaan u maleynayaa supermarketka ka hor kuma arag magaalada oo waa biyo ay ku qoran leeyahay magacooda Maa-i Dubai. sidaa darteed waa waxyaabaha uu kaga duwan yahay supermarketyada kale. waxaana fiican ganacsi markii aad sameynayso waa in uu keenaa wadanka ama uu iibgeeyaa waxyaabo uu dadka kale kaga duwan yahay. marka waxaan ku amaanayaa dhalintan waxay keeneen biyo iyaga kaliya ay hayaan. sidoo kale timir iyaga u gaara oo Turkiga uga timaada. marka waa hal abuur aad wanaagsan baan leeyahay.
halkan waxaa iga muuqda qaybtii hilibka lagu shiidayey. qaybtan waa qaybtii hilibka lagu shiidayey baa layidhi. sidoo kale qaybtan waa qayb sharaabta. marka halkan waxay kaga duwan tahay meelihii sharaabka lagu shiidi jiray ama makiinadihii sharaabka lagu shiidi jiray. waxa ay kaga duwan tahay, waxay leedahay waxay isugu jirtaa haddii ahaan la diiritaankii, haddii ahaan la shiiditaankii wax oo dhan, iyo iyagoo seekaa inay hoos kasoo siidayso. waxaan u malaynayaa qaybtii hay'adda spare partsyadii, haddii ahaan lahayd baanadihii, tuuliskii, adigu waxyaabaha loo adeegsan jiray, iyo tuubooyinkii iyo qalabkoodii wax oo dhanba inay halkan yaalaan iyaguna. maasha allah, waxaan leeyahay waa supermarket waxyaabo badan isugu jira dhammaystiran. haddii aan qaybtaa u nimaadno, waxaa weeye qaybtii electroniga sida kombiyuutaradii, printeradii iyo wixii lamid ah. dhammaan adigu qaybtii electroniga loo isticmaali jiray. korka waxaa ujeedaan waxyaabihii entertainmentiga ama madadaalada carruurta ku ciyaari jireen, haddii aan baskooladihii, xitaa sports. waxaan isleeyahay dee supermarketka waxba kama maqna. marka insha allah billahi kariim, waxaan rajeynayaa inaad mataqaanayo la soo xiriiri doontaan. ciwaanada waa idin soo siin doonaa iyo lambarada waliba hoos ayaan kusoo qori doonaa. marka qaybtan xitaa waxaa ka marnayn saacadihii haddaad tahay dee nin dhalinyaro. bismillahi raxmaani raxiim. magacayga waxaa la maxamed Fattax Maxamed Yuusuf. waxaan ka mid ahay shaqaalayaasha Al-Afaaj Group Hypermarket. muddo waxaan ka shaqeeyaa hadii 7 bilood camal. marka wax kastana waa haynaa online ahaan. dariska xaafadda noo dhow u geynaa alaabta kalsoon, waxyaalo badan oo ka caawinayo magaalada ka duwan waa haynaa. waxaa ka mid ah sida timiraha, iskutada, biyo anaga noo gaar ah oo dibadda keedsan oo magaalada noo xiran tahay. dad waxaa ka shaqeeya asxaab oo badan oo qaabilsan soo dhaweynta. marka saaxiibayaal, waxaan rajeynayaa in aad ka bogateen. anagu waan ka sheekeeyey, dhalinyartii meesha mas-uulka ahaydna waa ka sheekeeyeen. de waxaad ka dareemaysaa inay dhalinyartaasi soo dhaweynta aada ugu wanaagsan yihiin, sida ani lai soo dhaweeyey. marka hore waxaas lahaa aan supermarketka gudbayay maxamudow, dadka kaamirado waa ka baqaano, marka waxaas lahaa ama laguga adkeeya. balse sida lai soo dhaweeyey, waxaan rajeynayaa in idinkuna idin soo dhaweyn doonaan dhalinyaro. aad baa mahadsantahay maxamudow. adiga iyo dhalinyarta kale saaxiibayaal, supermarketkii magaciisa muxuu ahaa Al-Afaaj Group Hypermarket waan ka soo baxnay. muuqaalkiina waa inoo ogolaaday inaan kasoo duubno. run ahaantii waxaa weeye dad aada u wanaagsan. dadka biniaadamka isku mid maaha, ilaahay farahaas oo kale uu ka dhigay biniaadamka masina. marka waa ay ogolaadeen in mataqaanaayo oo aan video ka duubo. sidaas darteed annagu waan u hagarbaxayaa. waxaan rajeynayaa in aad idinkuna dee macaamiil la noqon doontaan, maadaama muuqaalkii aad ka bogateen bahalkii ah supermarketka. mar walba waxaan rajeynayaa insha allah billahi kariim in aad ku xirnaataan. lambaradooda waa idin soo siinaya qaybka description-kana waa kusoo qoriyaa haddii aan la idmo. sidoo kale waxaan kusoo xardhayaa fiidiyoga hoostiisa lambaradooda waan kusoo qoriyaa insha allah billahi kariim. mar walbana dee ku xirnaada in leeyahay Al-Afaaj Supermarket. waxaanba ku arkay nin dhalinyaraa oo aan isnaqaanay. marka ilaahow dad hanoo waay, ciidan la-aan ilaahay nama dhigo. waxaa wanaagsan inaad dadkoo dhan wada taqaano mararka qaarkood ama caan tahay, waayo waxay mararka qaarkood kuu suurtagelinaysaa meel aan dadka inta badan loo ogolaan inaad adigu gasho, dadkana intaa kaga duwanaato. marka waan u mahadcelinayaa walaalkay Maxamuud oo igu soo dhaweeyay supermarketka. halkan waxaa soo istaagay saaxiibkay Muxsin. soo dhow. maasha allah, aad u wanaagsanay. waxaan u malaynayaa waa qofka ugu horeeyay saako asxaabta xaafadda aan arkay inaad tahay. saaka xilli horaan soo toosay mise dadku mid ah xalay dhan baa qad lagu wada jiray, cidba waa waayeyba. may horta rag waa ka wada jiifaan. korontadan maalmahan waa maqan tahay. marka aninkii wax yar ugu jireen xalada ku iska ridi. saakan mas'aalaha ku qasbaya marka. asxaabta maxaa leedahay? asxaabta waxaan leenahay waa channelka Maxamed Soomaali ku soo dhawaad. production sax. marka waxaan leenahay boosaaso roobaysatay iyo jawiga magaalada quruxda badan hal qayb qaat. aad baa mahadsantahay. aad buu mahadsanyahay Muxsin. waa dhalinta xaafadda. marka waa maxaa leenahay qofka ugu horeeyay aan saaka arko dhalinyarta xaafadda.
marka laga reebo dhalinyarta supermarketka aan kusoo arkay haddeeraan imi saaxiibayaal xaafadii meesha waa ka imi vlogii halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkii isaaka aan ku mariyey laamigaas iyo soddonka ilaa meelo badan wax badan baanu soo sheekaysanay waan u malaynayaa bal insha allah billahi kariim intaan ayaan muuqaalkan kusoo gabagabeynayaa haddaba haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saar videogana like saar siina share garay commentigana hanaga ilaabin wixii naga qaldan waan saxaynaa noogu soo shaqeynta commentiga allah billahi kariim